guddiga gacanta ku haya dhismaha Masjidul Ansaar oo shalay la shaaciyay dib u dayactir lagu sameynayo masjidka ayay saakay guddiga si toos ah u bilaabeen howlaha dib u dhiska masjidka waxaana hawsha dhismaha masaajidka laga bilaabay dumin lagu sameynayay qaybo kamid ah dhismaha masjidka si hawsha dib u dhiska loo bilaabo qaar kamid ah guddiga ku howlan dhismaha masjidka oo la hadlay warbaahinta ayaa inooga warbixiyay qaabka ay maanta hawsha u bilaabatay waxayna kale umada muxsiniinta ahi ee qeyrka jecel ka dalbeen in ay kaalintooda ka qaataan dhismaha masaajidka. waxaa maanta aan joognaa masjidkii Masjidul Ansaar ee ku yaal xaafadda Dharkeenley oo camaliyadii shaqadiisii dhismaha maanta ay bilaabatay oo ka socoto taariikhda bisha islaamka Dhulxaj ay tahay 15 1442 miilaadiin ay tahay 26 bishii Juulaay 2021 oo maalin ay tahay Axad ah waxaa Ilaahay mahadiisa ah in hawshii saakay bilaabatay si habsami fiican u socoto waxaan ka rajaynayaa in nabad iyo wanaag uga dhamaato waxaan weysiinaa ama diyaar ka aadaan ama ka koreeyaan ama diwaan muxsiniin ah inay masaajidka u istaagaan ay qayb ka qaataan oo baytullaahi marto waaye ay maartay nin walba bardu waxa waaye waxa waxa masaajidka Ilaahay aa gashatid waxa ka horeeyo maalku ma qadamto waaye maalku ma qadamto maalkaaga wax horumarsta waaye qof walba muxsin ah waxa loo baahan yahay inuu qayb ka qaato وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إلهي المحسنين توجعلها كو إحسان كفلا بيت كان وبيت إلهي قفل بحال مسلم أو دوغينا مغلو إنه أجوك سدو أو غيب كقاتو على قدره انت سان كو بغادينا إن شاء الله وحرجينا إنه ساف سؤال على وقت مدير لو تغسيب عنه قدماتو إلهي كرجينا انت كغيب قادتنا waxaan Ilaahay ugu rajaynaa in adoolba oo qayb ka qaata muraadkiisa uu ku sahlo maanta Masjidul Ansaar oo dhismahiisii amalkiisa noo bilowday maadaama wax baahi badan loo qabo masaajidka marka qofkii wax la baxay oo islaam ah hore u la baxay iyo qofka hadda la bixi doonaba waxaa leeyahay jazaakumullahu khayran biaydiikum maftuuha maartay masaajidku waa idin furan yahay qof walba maartay wuxuu ku soo tabaruci karo masaajidka lambarada oo maartay uu leeyahay waxa waaye hormuudkiisu waa furaha 3 waaye 28 27 44 furaha 3 waaye 28 27 44 iyo 43 labadaas lambar waa hormuud labada lambar oo kalena waa samtel ayadana sidoo kale labadaas lambar afartaas lambar oo isku nooc ah ayaa masaajidku leeyahay qofku ku soo hagaajin kara dahabkiisa iyo maartay iyo hormuudkiisa waa furaha waa 3 28 27 44 iyo 43 marka qof islaam oo dhan oo maartay masaajidka inuu ka qayb qaato rabo oo masaajidka inuu wax ku darsado rabo waa guriga Ilaahay lambaradaas ku soo maartay ku soo hagaajiyo mu'asasada Sheekh Aadan Dheere iyo bulshada deegaanka ayaa kaalin ka qaatay bilowga dhismaha socda iminka iyadoona ay xusid mudan tahay sida ay inoo xaqiijiyeen guddiga masaajidka gacanta ku haya in aysan taam ahayn tasiilaadka uu u baahan yahay masjidka loona baahan yahay in ummadda islaamka ahi ay qeyrka jecel in ay doorkooda ka qaataan dhismaha